الله محمد محمودنا مرادنا لقائه الله محمد محمودنا مرادنا ziyaaradii toddobaad ee Sheekh Xasan Sheekh Axmed oo cali Sheekh Xasan Madoobe iyo Sheekh Xuseen Cali Dhoore ayaa lagu qabtay markaska jamaacada Reesha Cabdullaahi Maxamuud Cali oo ku yaala xaafadda Wararska ee degmada Daynile mashaayikhda oo cimrigooda inta ugu badan ku bixiyeen oo adeegida diinta Islaamka ayaa ziyaaradooda oo si weyn loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay mashaayikh marti sharaf iyo xer aad u fara badan 18 degmo ee gobolka Banaadirna iskaga kala yimid siyaaradan ayaa lagu bilaabay khidmooyin quraan ah iyo salawaadka suubanaheena sidoo kalena mashaaikhdii ajleeda ahayd ee ka soo qayb gashay ayaa ku dheeraadeen ka sheekaynta ziiradoodii iyo ku dayashadoodaba munaasabada meeshan gogasha aan noo dhignay wadaanu ka warbixino labadeena sheekh oo xilligan oo kale aanu u wardi akhri jirnay u ducay jirnay ducadoodii baan isugu nimid الشيخ حسن الشيخ أحمد وعلي والشيخ حسين علي دhoore labada sheekh munaasabadii aan ugu ducay jirnay baanu joognaa marka mashaayikhdii baan ugu ducaynaynaa dad caalimiin oo awliya oo diinta laga bartayo waxay ahaayeen ehel u ah in loo duceeyo munaasabadii baanu gudanaynaa walaalayaal sidaas weeye سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما وحو يرى النبي وحو كوري إن من عباد الله إلا أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يقبضهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم تتكاسيهم بيرادين مركي النبي وير إن من عباد الله إلا أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء إلهي أضوامي سوحا كمدا كوان أنبياء أهين شهداء أهين يقبضهم الأنبياء والشهداء أنبياء إيه الشهداء وما جارسدوا نبي ركواس مركبي الصحابة وحي راده يا رسول الله تخبرنا منه كواس واد نوشيغي ده يهين ددك النوع عاصا oo ambiyadana aan ahayn shahaadadana aan ahayn dadka noocaas oo ahlu fadliga ayna ma jeersanayaan yihiin buu yiraa marka wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri dadkaasi waxa weeye dad ilaahay daraadiis isku jeclaada weeye buu yiri waa dad ilaahay daraadiis isku jeclaaday oo aan isku jeclayn inay maal isisiiyaan ama qaraabanimo iyo reexnimo ka dhaxayda aan isku jeclaan weeyo dadkaasi waxay ku sugan yihiin buu yiri inna wujuhahum la nuurun buu yiri wajigoodu wuu iftiimaya wayna la ala nuur korkiis bayna aayeno dadkaasi dad wanaagsan way waxay isku jeclaadeen ilaahay daraadiis maxabada noocaas dadka ahlu cilmiga mashaayikha iyo talaamiidooda dadka dulaabul cilmiga wada baranaya dadkaas oo kale way dhex maraysa ayadii weeyo culimadeeni mashaayikhdeeni waxa weeyaan maxabadaas dhabta ayaa nagala dhaxaysa nabigu wuxuu akhriyay markaas xadiidka markii uu Sayyid Umar wuxuu yiri markuu akhriyay nabigu wuxuu akhriyay la inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا النبي وآخري وحير إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذاتك أولياء لا خوف عبسي عليهم كركوذا ما يسنهن وحا أيها كهرية قبرك إعصابتا كعبسا مهيا ولا هم يحزنون waxay ka soo tageen ma ka tiiraanayaan awliyadu marka waa kuwa ilaahay baa noo tilmaamay alladina aamanu wa kaanu yattaqun wa kuwa ilaahay rumeeyay
ilaahayna ka cabsanayo kuwaas weeyaba ilaahay ku tilmaamay sifadaaba weliga meel fogba laga raadin maayo aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun lahumul bushraa baa ilaahay yiri dadka noocaasi bishaaro iska leeyihin fi lxayaati dunyaa wa fi laakhirati adduunkana bishaaray leeyihiin aakhirana bishaaray leeyihiin albishaaratu fi dunyaa culummadu waxay yidhaahdaan waa duhuuru lkaraamaati yacni karaamooyinka oo ka daahira iyo umuurtooda oo wax alla wixii ay doonaan ilaahay hore uu uga gudahayo marka amuurtooda oo dhan baa waxay ku soconaysaa taysiir culummada qaarkood waxay yidhaahdeen athanaa alxasan waa taariikhda wanaagsan oo bacdigood lagu xasanayo lagu xusayo nabiyullaahi ibraahim waatuye wajcal lisaana sidqin fi laakhiriin dadka dambe lisaana sidqin ilaahu iigu yeelu yiri iga dambeeya marka dadka haddii wanaag ay sameeyaan laasim waxaa noqonaya wanaaggaa lagu xusaya dadkaas waxay ahayeen dad ahlu cilmiya dad ilaahay ka cabsaday dad taariikh dhaba lahaayeen markaaba ilaahay wuxuu ku amaalmarinayaa intaan iyo intoo kale ayaguna inay ku xusaan wanaaggii ay lahaayeen hadda ijtimaacan aan u jeednaay waa shukrinaq ilaahay aan uga shukrinayno ilaahay nicmadii uu naga soo gaarsiiyey mashaayikhda la xusayo oo nicmada diinka ayaa ugu weyne diinkii nooleyntii ay nooleeyeen ee ay markaa ku nooleeyeen dhulka aan ka soo jeedno iyo ilaahay ardadiisa oo dhan uu kala gaaray taas ayaan uga mahad celinaynaa man lam yashkuri naasa laa yashkurillaah qofkaan dadka ku shukrin oon u mahad celin wanaagga ka soo gaara ilaahayna kuma shukriyo man asdaa ilaykum macruufan fakaafi'uuhu buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idan marka waxaan leenahay mashaa'ikhdu waxay ku sifoobeen sifo aad iyo aad u qaali ah oo dadkii saalixiinta ahaa ay ku sifoobeen ayay ku sifaysnaayeen imaamu shaafici baa waxaa la yidhi wuxuu yidhi waxaan kala kulmay buu yidhi suufiyada laba mas'alo markaasuu labadii mas'alo la weydiiyo wuxuu yidhi waxaan kala kulmay nafsuka in lam tashqalhaa bilkhayri shaqaladka bishar naftaada haddaadan khayrka ku shuqlin shartay kugu shuqlisaa waa xikmo weyn oo wuxuu yidhi suufiyada aan ka helay waxaa markaa sheekhu iyo mashaayikhdu ay ku sifoobeen waa xikmadaas naftooda waxay ku shuqliyeen khayrka ayay ku shuqliyeen yaraantoodii laga soo bilaabo ilaa wafaadkooda laga gaaro inay diinka ilaahay faafinayaan kuna dhaqmayaan ku camalfalahayaan ayaa shaqadoodu ahayd ganacsatana ma ahayn jagana ma raadsanaynin adduunyo waxay ku dhammeeyeen waqtigooda nooleynta diinta islaamka sidaa darteeda markaa waxay waqtigoodii markaa naftooda waxay fareen khayrka intaanay sharta farin wuxuu yidhi markaa haddaan markaa annagu sidaas samayno wixii ay gaareen waa gaari karnaa ilaahay wuuna gaarsiinayaa haddaan dadaalkaa samayno oo naftannada intaan xisaabno xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu oo annagu intaan isxisaabno aanu khayrka farno naftannada inaan khayrka farno nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ana zaciimun bibeytin fii rabadi ljannati liman taraka almiraa'a wain kaana muxiqa wa bibeytin fii wasadi ljannati liman taraka alkadiba wain kaana maazixa wa bibeytin fii acla aljannati liman xasuna khuluquh wuxuu yidhi guri jannada fagaaggeeda ku yaalaan u ballan qaadayaa qofkii muran iyo dood iyo qararac iska daaya wain kaana muxiqan
haba ahaado qof xaq ku hadlayee doodoo dhanba iska daaya وببيت في وسط الجنة جنة برتن كذا بيت كيالان أبلان قاضي يا بيري لمن ترك الكذب وإن كان مازحا هبا كفتما يا قف كي بيان اسكدايا وان بيان كو كفتمين وان بيان مركز شيغينين كاسنا إلهي نبي صلى الله عليه وسلم مساسو أبلان قاضي وببيت في أعلى الجنة jannada meesha ugu sarreysa mid ku yaalana waxaan u ballan qaadayaa buu yiri liman xasuna khuluqu waxaan macal shaahidkaygu ahaa marka waxay ahaayeen ahsana naasi akhlaaqan dadka kuwa ugu akhlaaqda wanaagsan ay labada sheekh la xusaya ahaayeen oo aan marka waxa weeye dadka dhamiba macruuf agtooda ay ka yihiin oo lagu yaqaanay ma aha mid anaga iskaga sheegayno nin hadda caawa maanta muqdisho jooga oo sheekh Cabdiweli Maxaatman ayaa hadda ka hor meel isku raacay marka meeshii tagnay waxay ahayd waxa weey ayaamu tashriiqi waa maantii koobaad weey waxaan irinayo xalwo iyo inta nala keenay bal kaala cun xalwadan wuxuu yiri may waa soomanayo war hadda waa ayaamu aklin wa shurbina see wax wada markaasuu yiri sheekhiga wuxuu amray yiri 60 bari oo aan kala go'in waxaan irinayo see yeeshay maantii waxa weey ciida see yeeshay marka 60 ka bari hadaa kala goysid waa isku xiraysaa yiri 60 kala soo bilaabaysaa yiri see yeeshay waan iri marka waxa weeye maantii maartay ciida see yeeshay wuxuu yiri maantii ciida waa soomanayo balfiiri marka ikhwat al-izza marka waxaasa nagu jira hadii ilaahay ku ran yahay in laska maartay wardiyeeyo oo mashaayikhda ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay uu nasiyay oo ahlu cilmiga ahayd runtii waxa weeye maartay waxa ninkii dhul maray waxa la dhaaya maartay dhaayale ma ahayd wax badan baan uu soo arkay mashaayikhda ilaahay subhanahu wa ta'ala raasha cali samatar uu siiyay mathalkooda kala lama arko dad waxa weey ahlu cilmiya dad waxa weey diinka ilaahay ku dhaqmaya marka insha Allah ta'ala aan ku dhagno yaana ka sir mirxan maxay yeelay waxa weey hadii laga samirxado fatazil qadam ba'da thubutiha meeshaas waxay ka dhigayaan saawiga iyo ibn hajar al-haytami kitaabkiisa leeyahay al-fatawi al-hadithiyya wa kada man zallat qadamuhu an ahdi shaykhi fala yurja lahu falahun fi dariiqati ghayri qofta wuxuu yiri mashaayikhdiisi wadadoodii iyo ka leexday meel kale iska aaday hatta midaas uu aaday wax liibana uu kala kulmayo lama arkayo kutubuhu meeshaas way cilaynayaan waxay ku cilaynayaan liana dariiqa waahid dariiqu waa waahid midkan uu nacay uu ka tagay iyo midkaas uu aaday waa isku mid marka waxa weey kulligood asagoo madruux ka dhigo kala weey siyaaradan ayaa sanad walba xilligan oo kale lagu dhigaa gobolada Soomaaliya iyo caasimadaba. Maxamed Cabdi Cadde, Hadyuddin TV, magaalada Muqdisho.